السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا شرفتا بدوان سلامي. marka ugu horeysa ku saliya nabigeena xabiibkeena عليه أفضل الصلاة والسلام سيدو إلهي سبحانه وتعالى هو أمري يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ما أنتو حينو هنا informationno iyo akhbaaro kala duwan oo ku saabsan cryptocurrency-ga. Khabarkan waa 2 saacadood ka hor buu ahaa. Waxaa la yiri waxaa la xaday $440,000 ayaa laga xaday company macruuf ah oo caalami ah oo la yaqaano. Company-gaas waa taqaaniin waxa weeye MicroStrategy. waa kambanigii aynu ka hadli jiray Michael Saylor ninkii ka mas'uulka ahaa. Social media khabarka laga sheegay maanta oo Isniin ah. waa maalin Isniin weeye. Marka social media akhbaarahaas ay ka hadlaysay wax kale laga hadlayba in laga dhacay company-ga $440,000. khabarkan wuxuu ku leeyahay xuud ka mid ah xitaanka waaweyn ee cryptocurrency-ga wuxuu sameeyay wixii uu ka haystay cryptocurrency-ga dhan buu iska iibiyay waa gaday gabigiisaba mumtalakaadkiisa ama hantidiisii dhan buu gaday waliba khasaare weyn way ka gaadhay meesha waxa weeye waa xitaanka Shiba tabcan inagii coin-ka laga fogaado in badan waa uga dignay dadka inuu coin xaraan yahay dad badan ayaa og sheekada dadna ma oga marka imika wala socda xitaankii ku dhex jiray Shiba inuu wax badan bay iska iibiyeen Shiba inuu ah oo iyagu hantidooda ah way iibiyeen taasna waxa weeye waa arrin aad u culus weeye coin-ka meme coin-ka loo yaqaano in waxaas ka dhacaan lacag badan ma ku jirtay meesha lacag yar ma ahayn waxaa la iibiyay wax ku dhow half a trillion token oo Shiba ah half a trillion token Shiba wax yar ma aha lacag badan weeye macnaha marka lagu qiyaaso dollar wax badan bay gaari doontaa khabarkan waxa laga keenay platform-kan wax taxliiliya ee loo yaqaano spot on chain ayaa moogtay arrinta aad uga hadlay marka nimanka xitaankii waasanu sheegnay wax badan bay iibiyeen taasna suuqa way saamaysay iibitaanka iibiyeen halka waxay ku leeyihiin 421.6 bilyan oo token bay khaarijiyeen oo price-kuna uu yahay 0.0005 eber baa ka horeeya taasuna waxa weeye waa Binance gudaheeda iyo DEX ayaa moogta waxyaalaha lagu khaarijiyay wallahi wax badan wax yar ma aha taasna way saameynaysaa suuqa cryptocurrency haddaynu eegno khabar kale nin kale oo xuut ah khabarkan shalay $1 ahayd xuut ka mid ah xitaanka cryptocurrency-ga wuxuu iska iibiyey 59 milyan oo XRP ah price-ku soo daadanaya oo ka soo daatay 0.54 trade badan baa ka dhacay aad baa lagu trade gareeyay suuqa cryptocurrency-ga maalmihii ugu dambeysay taasna waxay muujisay in niman badan oo xitaan ah ay ku dhex jiraan centralized exchange-yada ah oo dad badan oo daneynaya cryptocurrency-ga in iyagu laftoodu markay arkeen xitaankan oo waxaa sameynaya dhex galan iyaga laftoodu laakiin halka wuxuu ku leeyahay price-kii XRP isagoo soo daadanaya bay arrimaha galeen waliba intaa way ka hooseysay 0.54 bay ahayd waa lambarka ay ka hadlayeen nimanka moogtay ka taxliiliya suuqa halka wuxuu ku leeyahay Australia aad bay moogtay u daneynaysaa Bitcoin-ka way sii badanayaan dadka moogtay jecel inay Bitcoin-kan iyo maaragtay products-kan ETF-ka dhex galay aad bay u sii bateen iyada laftoodu khabar fiican weeye Australia hadii ay xaaladda gaadhay oo cryptocurrency aad u dhex galayaan Tom Lee waan ka hadalnay habeenootan ka hadalnay Tom Lee waa muxallil weeye wuxuu taxliiliyaa suuqyadan kala duwan waliba cryptocurrency aad u taxliiliyaa wuxuu ka shaqeeyaa company la dhaho Fundstrat wuxuu ku leeyahay Bitcoin 2024 dhamaadkiisa wuxuu gaari doonaa $150,000 Allahu a'lam cilmi al-ghayb weeye laakiin waa saadaal fi nihaaya waa saadaal weeye halkan waxaa ku qoran khabar maandhowto ahaa waxaa jira saadaal coin yaro ka mid ah coinanka ayaa wuxuu sabab u ahaa inuu suuqu hore u daato bari hore waa Luna coinkaasi ka hadlayeen Luna waa coinanka niraano coinanka productkooda dhan baxaraana laga fogaado muhiim weey taasu coinki EOS maandhowtay ahayd EOS waa coin ka mid ah coinanka ay dadku aad u jeclaayeen zaman waxa loo jiray coinka EOS wuxuu noqon doonaa next Ethereum saas loo oran jiray 2018kii 10% bay buuday waana wax lagu farxo Nvidia oo aad u faa'iideysatay ayaa laga hadlayaa iyaga oo ay saadaashu tahay Bitcoin-ku inuu in badan dhaqaaqin $50,000 levelka $50,000 ka fogaan halkana oo Ingiriiska lajnat al-qanuun meesha looga qanuunka United Kingdom qanuun bay soo saartay cusub oo cryptocurrency-ga ku saabsan inuu noqdo wax mulkiyad ah ama asset uu noqdo hanti inuu noqdo cryptocurrency-gu taasna haddanu yar dhex gallo qawaaniin bay soo saareen Ingiriisku moogta ku saabsan cryptocurrency-ga taana laga taxadiro qofku hadduusan qawaaniinta akhriyin oo meel dalaq yiraahdo dhowto in ay dhibaato soo gaadho waa khabar weeye maalinta dhowta khamiista laga sheegay khabarka inay qaanuun soo saarayaan oo maaragtay adigu maxkamado iyo arrimo badan baa ku dhex jira meesha in laga dhigo dee wax maaragtay mulkiyad ah waa mulkiyad weeye waa sida adigu guri haysta oo kale matalan qofka Bitcoin haysta oo kale dee khalaas waa laga diiwaan gelinaya meesha waa kaano inuu yani hanti ku leeyahay meesha haddii wax ka lumaan ama wuxuun dhacaan ama anything dhacaan waxa weeye waa iyaga ka mas-uul ah oo ishay ku hayaan Bank of England wuxuu yiri isaga laftiisu moogta hawsha ku dhex jiraa oo baaritaankaas ku dhex jiraa in cryptocurrency la isticmaalayo bangiyadu aad bay cryptada u isticmaalaan
laakiin ma rabaan in customersku ka fogaadaan waxay ku leeyihiin ha ka bixin bangiyada hadday ku arkaan adoo crypto ka ganacsanaya oo lacag ka diraya way yaqaan exchangeada badankood waxay kuu soo dirayaan ama warqad ama telefoon information badan baa laga qaadanaya haddii wax lagu ogaado in dowladda u gudbiya ma dhici karta akhyaarta intaas weeye inta aynu akhbaarayno maanta ilaahay idin barkeeyo insha allah ku dadaala inaad soo boqotaan kanaalka Somali Cryptofolio koorsooyinkan cryptocurrency aynu markasta soo gudbino oo ardayda ugu sharaxno rajoacademy.net soo booqda ka faa'iideysta meeshana waa meel laga faa'iideysto waa meel cilmi laga barto waa meel lagu nagaaday xaqiiqatan alxamdulillah ardaydeenu markasta commentiyada ay noogu soo qoraan feedbacka hana ilaawina insha allah markaad videoga daawataan inaad noogu soo qortaan feedbackyadiina sidee u aragtaan cryptocurrency mustaqbalka say tahay xagee wax marinaysaan insha allah walaalaha nagu cusub waxaan leeyahay subscribe hana ilaawina insha allah like-ana dee waa muhiim weeye commentkuna waa dhinaciina siina shargareeya si uu meel kasta u gaadho insha allah ilaahay idin barkeeyo waana walaalkiin axmed aadan weeye wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Raja Academy waa platform qof kasta oo xiiseeya cryptocurrency ama raba inuu macluumaad ka ogaado uu ku baran karo koorsooyin ku baxaya afka Soomaaliga loona diyaariyay si casriyeysan haddii aadan hore u maqal cryptocurrency waa lacag digital ah oo la qorsheynayo mustaqbalka dhow inay si official u gaarto caalamka oo dhan walow meelo badan oo adduunka ah hadda laga adeegsado sidoo kale cryptadu waa meelaha ugu fiican ee la maalgashto platform Raja Academy waxaa ku xiran kumanaan arday oo jooga dunida daafaheeda koorsooyinka ku jira waxaa loo agaasimay sida ay u kala horeyso fahamka cryptada sida introduction basic intermediate iyo advanced oo mid kasta aad ku sii fahmayso ahmiyadda lacagaha digitalka ah sida ay u bedelayaan dhaqaalaha caalamka iyo ka muslim ahaan sidii aad qaab xalaal ah ugu shaqaysan lahayd sidoo kale platformku wuxuu leeyahay qayb blog ah oo si joogto ah loogu soo gudbiyo waxyaalaha cusub iyo farsamooyinkii soo kordhay markii aad iska diiwaangelinayso kooraska waxaa muhiim ah inaad account ku dhex samaysato webka kadibna aad doorato payment option kugu habboon haddii aad joogto Soomaaliya ku bixi EVC Plus-kaaga haddii aad ku sugan tahay qurbaha isticmaal credit card-kaaga haddaba si aad u hesho caawimaad joogto ah nagala soo xiriir linkiyadeena Telegram iyo WhatsApp mahadsanid